kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aynu ku eegi doonaa xaaladda Itoobiya. Maxay tahay sababta Itoobiya u diiday in la soo farageliyo dagaalka gobolka Tigreega? Itoobiya ma waxay minjaxaabisay ururka Midowga Afrika? Diidmadaasi miyay ka dhigan tahay diidma ay ku dayo doonaan dalal badan oo ka tirsan EU-ga? Cabsi intee leeg ayaa laga qabaa inay dhacaan dambiyo dagaal? Door intee leeg ay Midowga Afrika ku leeyihiin dhexdhexaadinta dagaalka ka socda gobolka Tigreega? ugu dambeyntii maxaa dhaliyay khilaafka u dhaxeeya TPLF iyo Abiy Ahmed? Su'aalahaasi ayaan kaga jawaabi doonaa mar kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. Itoobiya ayaa hormuud ka ahayd dhisidda ururka Midowga Afrika ee loo soo gaabiyo EU, balse Alex Dewal oo faaqida arrimaha dalka Itoobiya ayaa ku doodaya in ficilada Itoobiya ay majaxaabinayaan mabaadi'dii ururka loo aasaasay. Waxyar ka hor inta aysan magaalada Addis Ababa soo gaarin saddexda madaxweynaha hore si ay u baaday goobaan sidii qaab nabadeed looga xalin lahaa dagaalka Tigreega, ayaa waxa uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed amray waxa uu ugu yeeray wajigii ugu dambeeyay howlgalka soo celinta sharciga. Waxay arrintaasi ahayd diidmo aan caadi ahayn. Madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf, madaxweynihii hore ee Mozambique Josima Kezano iyo Kalema Mothlan oo ahaa madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ayaa la kulmay Mr. Abiy, balse madaxweynaha waxaa loo sheegay in Itoobiya ay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah gobolka Tigreega. Mr. Abiy ayaa sidoo kale sheegay inaysan la kulmi karin wakiilo ka socda xoogagga Tigreega ee TPLF oo uu ra'iisul wasaaruhu ku tilmaamay koox dambiilayaal ah. Isaga oo soo xiganaya cahdiga qaramada midoobay ayaa bayaan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha waxa uu ku adkaystay in dowladda federaalku ay wado howlgallo gudaha ah, isla markaana ay tahay in la dhowro mabaadi'da ah in dal madax bannaan aan la faragelin. Balse Cheti Otunkulu oo ah sharci yaqaan u dhashay dalka Nigeria ayaa ku dooday in Itoobiya ay isticmaalayso cahdiga qaramada midoobay iyada oo dagaal horinaysa, taasi oo ka soo horjeeda ujeedadii qodobkaasi. Waxa uu farta ku feeqay in dagaalka Itoobiya uu mar hore noqday mid caalami ah sababtoo ah buu yiri Eritrea oo faraha la soo gashay iyo qaxootiga ku tala baxay xuduudda Suudaan. Sidoo kale qaramada midoobay ayaa dejisay xeer looga hortagaya in dal uu si xun u isticmaalo nidaamka ah in aan la faragelin, iyaga oo markaasi siinaya isla xisaabtan la'aan ku aadan tacdiyada ay geystaan. Tan iyo sanadkii 1980 xalinta dagaalada waxay ahayd shaqada iyo xuquuqda qaramada midoobay. Laga soo bilaabo sanadkii 2005 dalalka waxa ay mas'uuliyad ka saaran tahay inay difaacaan rayidka marka ay dagaal socdaan. Cabsi intee leeg ayaa laga qabaa inay dhacaan dambiyo dagaal? Ku gacan sayridda ugu gacan sayray dhexdhexaadiyaasha Midowga Afrika, Mr. Abiy maaha oo kaliya mid diidmo ah ee waa mid ka hor imaanaya mabaadi'da loo dhisay Midowga Afrika. Qodobka afaraad xarafkiisa G ee sharciga ururka oo ay Itoobiya saxiixday 2002 ayaa qeexaya waxa ay tahay in dalna uusan faragelin arrimaha gudaha dal kale oo xubnaha ka ah ururka. Balse isla qodobka xiga ee afraad faqradiisa H ayaa Midowga Afrika xaq u siinaya in ay farageliyaan wadan xubin ka ah iyada oo loo eegayo duruufaha sida dambiyo dagaal, xuquuq iyo dambiyo ka dhaca xuquuqda aadanaha. Sharcigan ah in marka ay duruufaha kor ku xusan jiraan dal la faragelin karo ayaa la dejiyay kadib xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda sanadkii 1994. waxa ay taasi micnaheedu tahay in Midowga Afrika ay dal faragelin karaan si looga hortago xadgudubyada dhaca. Dowladda Itoobiya qudheedu ayaa ku eedeysay TPLF inay geysatay xadgudubyo, isla markaana waxa ay khubaradu aaminsan yihiin in marka warbaahintu ay gudaha u galaan gobolka Tigreego in ay soo bixi doonaan cadeymo badan oo muujinaya dambiyo dagaal. Waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in ciidamada Eritrea ay xadka ka tallaabeen, isla markaana ay taxaabeen dad badan oo ku jiray xerooyinka qaxootiga ee qaramada midoobay, taasi oo ka soo horjeeda heshiiska qaramada midoobay ee qaxootiga. Haddaba door intee la eg ay ururka Midowga Afrika ka qaadan karaan dhexdhexaadinta xaaladan? Ururka Midowga Afrika ee loo yaqaan OAU ayaa waxaa sanadkii 1963 lagu aasaasay xarunta ururka ee Addis Ababa, isla markaana waxaa looga gol lahaa sidii la isugu keeni lahaa dalalka Afrika ee xorta ahaa. Mr. Abiy qudhiisa waxa uu farageliyay arrinta Suudaan sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo gacan ka geystay in si nabad ah lagu xalliyo khilaafkii u dhaxeeyay militariga iyo dhaqdhaqaaqyadii dibadbaxayaasha ah ee xukunka ka tuuray madaxweyne Umar al-Bashir. Nidaamkii kala guurka ahaa ee dimuqraadiyadda Suudaan ayaa ahaa mid lagu onkay nidaamka Midowga Afrika ee dhexdhexaadinta dhinacyada ishaya, balse ururka Midowga Afrika wali ma aha mid xoogan oo awoodiisa sharci oo dhan fuli kara. Waxa aad u yar miisaaniyada ururka, isla markaana dalku ma soo rogi karaan
waxa ay doonaanna kama yeelan karaan iyagoo sidoo kale aan go'aan adag ka gaari karin wadamada awoodda leh ayaa laali kara go'aanada ururka sidii dhacday markii uu bilaabay dagaalkii Liibiya isla markaana ay midowga Afrika ku baaqeen in qaab wada xaajood ah loo xalliyo balse waxaa taasi ka hor yimid Mareykanka midowga Yurub iyo dalalka Carabta oo iyagu ku adkaystay in nidaamka Liibiya la bedelo waxaa dhif iyo naadir ah in dadaalada diblomaasiyadeed ee midowga Afrika looga hortago dagaal ama dagaal socdo lagu xalliyo haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa khilaafka u dhaxeeya TPLF iyo Master Abiy Ahmed guddiga fulinta ee deegaanka ismaamulka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa bishii September sheegay in go'aan kasta oo golaha federationka ka soo baxa oo lagu joojinayo doorasho ka dhacda deegaankaasi uu la mid yahay dagaal la iclaamiyay oo lagu soo qaadayo deegaanka Tigreega shacabka Tigreega waxay xaq u leeyihiin inay doortaan ciddii hogaamin lahayd halka la rabay in lagu dhiirigeliyo in la carqaladeeyo doorashadoodu waa mid liddi ku ah geedi socodka dimuqraadiyadda ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay hase yeeshee golaha ayaa go'aamiyay in dawladda ay maamulka sii hayso muddo aan la cayimin iyagoo amar ku bixiyay in doorashadu dib loo dhigo sabab la xiriira fayraska corona arrintaas ayaa horseeday xiisada weyn ee ka dhex bilaabatay xukuumadda uu hogaamiyo Master Abiy Ahmed iyo siyaasiyiinta gobolka Tigreega ayaa loogu dhawaaqay in doorashadiisu aan dib loo dhigi doonin waqtigii sharciga ahaa taasoo horseeday ismarawaa baaxad leh maamulka Tigreega ayaa ka dhaga fureystay degniimaha iyo fariimaha uga imaanaya aqalka sare guddiga doorashooyinka qaranka iyo dawladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya intaba doorashada guud ee Itoobiya ka dhacay lahayd bisha September 2020 ayaa dib loo dhigay sabab la xiriira cudurka safmarka ee coronavirus iyadoo labada aqal ee dalkaasi ay cod buuxo ku ansixiyeen in doorashada dib loo dhigo 9 bilood ilaa sanad xiisada taagan waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in xisbiga Tigreega ee TPLF uu tilaabo qaadi karo sameynta maamul u gaar ah oo ka madax bannaan federaalka Itoobiya siyaasiyiinta TPLF waxa ay mar walba ku celceliyaan in ay diyaar u yihiin sidii uu gobolkaas oo xadka la wadaagay Eritrea ugu sii mid ahaan lahaa Itoobiya inteeda kale laakiin waxay hoosta ka xariiqeen in ay difaaci doonaan waxay ugu yeereen ismaamulka u gaarka ah TPLF waxay horaan dawladda dhexe ku eedeysay in ay wado qorshayaal ay ku soo weerarayso gobolka xisbiga TPLF ay awoodda dalka Itoobiya gacanta ku hayay ku dhawaad muddo 30 sano ah markaasi oo dib ugu la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed sanadkii 2018 waxa halkaas inooga eeg warbixintii gaarka ahayd ee aynu idinka diyaarinay xaaladda guud ee dalka Itoobiya tan intii aynu kulmi doono mid ka xiga sidaas iyo nabadgelyo